بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta ay tahay taariikhdu 26 bishii toddobaad 2025 magacayguna yahay Fatxi Cabdi Maxamed muuqaalkana kasoo duubaya magaalada Birmingham dalka Ingiriiska oo aan ku dhaqanahay dhowr iyo 20 sanadood waxaan doonayaa inaan muuqaal aan ka dhiibto iyo aragti ka dhiibto dhowr qodob midda ugu horeysa waxa weeyaan odayaasha adeerka igu toosan ee isku haybadnahay shirka jaraa'id ka soo qabteen magaalada Lafaciise qodob kale ugaaska mowqifku iska taagay gobolka Harowo iyo dadku matalo saddex dhowr qof oo u tahniyadeeyo annaka dalkan Ingiriiska waxa nagu haboon qoomiyadda Gadabursi dadka degan waxa ku haboon aragti aan ka dhiibto iyo marka ku xigtana gobolka Harowo halkee ku haboon intaasaan doonayaa si degdeg ah inaan uga hadlo insha Allah billaah kariim dhowrka meedha soo socda waa kuwa odayaasha isku haybadnahay ee magaalada Lafaciise ka soo hadlay hadalkooda wuxuu ahaa gaf iyaga shakhsiyan ku ah deegaankooda ku ah tulkooda Gadabursina ku ah mana aha odayaalkii ugu horeeyay ee gaf gala Soomaaliya ka dhacda Djibouti bay ka dhacda maantana ugu dambeysay waxa weeyaan Lafaciise ka dhacday maxay gaf ku tahay waxay gaf ku tahay 13 sano horteed odayaashii gobolka Harowo raadinayay ee ilaa federaalka dacwadooda dhigtay min dowlad deegaanka Soomaalida ilaa federaalka dhigtay ahaana odayaashii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee gobol iyagoo raadinaya tiradooda ku raadinaya dakhligooda iyo cashuurta ay bixiyaan iyagoo waqtiga dhigtay maanta oo la gaaray goboladii la bixinay 4 gobol la bixiyay iyo ka maqan yihiin dhowr iyo 10 degmo la bixiyay iyo ka maqan yihiin oo loo soo tuuray laf iyagoo neef xoolo raadinayay laf loo soo tuuray kuna beegmatay magacooda iyadoo tahay magaalada Lafaciise inay ku tahniyadeen laftaasi gif bay ahayd waayan sida uga hadlaya waxaan ahay 13 sano ugu dambeysay shakhsiga wuxuu ahaa Lafaciise iyo adduunyada isbaray muuqaalo waraysi ka soo duubay oo haddaan cayimo dhowr waraysi oo channelkan YouTube-ka dad tagtiin dhowr iyo 10 sano aan ka soo duubay haddaan cayimo magacyaal Ali Guriis baa kamida Allah u naxariisto uu dhintay Muuse Cali Madar baa kamida uu nool yahay Cabdi Xariir baa kamida iyo odayaal kale deegaankana waan ka soo duubay oo deegaankana dhowr muuqaal aan ka soo duubay baaxadday leedahay magaaladu baaxadday leedahay adduunyada ku faafiyay la daawaday shakhsi ugu horeeyay deegaanka isbara iyo adduunyada iyaan anagu ahay talabaadna haybad ahaan marka Soomaali haybad la yiraahdo abtirsiinaana deegaankaas aan ka soo jeeda marka waan ku haboonahay inaan ka jawaabo ummadda Gadabursina aan xal iyo raali aan ka bixiyo waraysigaasi beriga ka soo duubay Muuse Cali Madar baa ku jira oo sheegaya magaalada Awbarre inay xukuntay Aisha kaga soo bilow oo city ku taala ilaa iyo Awaare oo xigta bariga fog xigta magaalada Awbarre laga xukumi jiray maantana degmadii markay Soomaalidu hogaanta qabatay iyadu degmadii ku soo hadhay magaalada Awbarre quraatan gafkaasi ay Soomaalidu markay hogaanku qabato ay Gadabursiga ka galaan maaha ugub maaha hore u sii jirtay maamulkan uu hogaaminayo Mustafana waa looga soo horeeyo waxa weeyaan maamulkii hore ninka ay isku haybada yihiin Cabdi Ilay gafku ka galay bay tahay kumana koobna iyaga gafka Gadabursi laga galay dalka imika raadinaya madax banaani ee Somaliland Boorama lagu dhisay manfici markii la gaadhina Hargeysa baa lagu qaybsadaa mana soo dhaafto wasiirada iyaga qaata inta fiican iyo badankooda wasiirada qaata agaasimayaasha iyaga qaata
xukuumadda iyo shaqaalahan iyaga qaata. iyaguna ma aha ugubku may ahayn oo waa looga soo horreeyey gefka qowmiyadda gadabuursi iyaga oo magaalada jabuuti ku ah qowmiyadda saddexaad. ismaaciil cumar geele iyo adeerkiiba xasan guuleed waa gefka ay ka galeen ay matalaadii ay ku habbooneed ayna ka siin markay cayimayaan jabuuti. iyagiyo halgamaa usoo halgamay calanka gaalka ka riday, dadkii ka riday ay qeyb libaax ka qaateen. tiro marka la yidhaahdana ay qowmiyadaha ugu badan ay yihiin dadkii ka qeybga qaatay gobonnimadaasi. marka waa ma aha ugub, waxa weeyaan habdhaqankii soomaalidu ay maraysay unbaa maantana la maray, wayna ku mahadsan yihiin, waana ka filaynay. halka haddaan ka gudbo gefka odayaashaasi ay maanta kasoo yeedhay, u gudbo ugaaska uu ku mahadsan yahay, wuuna xaqiijiyey dhiiggii ugaas nuur inuu ku noolyahay inuu ku jiro. wuxuuna ku xaqiijiyey isagiyo dibadda ku nool, wuxuu ka doorbiday inuu la noolaado dhib iyo dheefbaba dadkiisa, inuu Etoobiya kula dhex noolaado. weli uunana aqbalin, uuna tegin casuumad Jabuuti, uuna tegin Hargeysana, uuna tegin. aad buu ugu mahadsan yahay. matalaadii iyo ugaasnimadiina wuu xaqiijiyey. maanta uu kelmadda kooban uu jeediyena aad bay noo anfacday, inkastoo anigu shaksi ahaan labada oday ee ka garab hadlayay ay aad hadalkoodu u jilicsanaa, nuxurka hadalkooduna uu ka baahay. mana ahana wax iyaguna ay ku kooban odayaasha boorama kasoo hadla, kuwa Jabuuti ka hadla, inkastoo Jabuuti hadli kareenbaba kuwa degan. halkan aan degannahay dibadda, odayaasha markay hadlayaan inay nuxurkooda ay ka baahdana waa wax jira. marka iyaguna ma aha kuwii ugu horreeyey, laakiin ugaaska aad buu noo deeqay hadalkiisu. halkaa waxaan uga gudbayaa tahniyad inaan diro xildhibaanka lagu matalo goob doorashada Arabi BP ku jira. hadalkuu jeediyey iyo qoraalkuu jeediyey uu yidhi anigu dadkaygu waxay tamayaan, waa la dareenahay, wana la raadini. aad baan ugu mahadnaqayaa. ka kale aan doonayo isaguna aan raacinayo xasan muuse oo isaguna nagu matala dhowrka xildhibaan ee kooban ee nagu matala dowlad deegaanka Soomaaliyana, isaguna sidaas si leeg. marka labadaa ninna waan u tahniyadinayaa. insha allah billah kariimnana xisbiga PP doorka soo socdana way nagu matali doonaan hadduu yidhaahdo. xildhibaan Kamaal waxa weeyaan xildhibaanka ugu cod badan dowlad deegaanka Soomaalida. 300 iyo jarjar kun oo cod buu kusoo baxay doorkii hore. doorkan ku xigana sidaa ay si leeg buu kusoo bixi doonaa insha allah billah kariim. marka labada xildhibaan waan tahniyadinayaa. waxaan ku xigsiinayaa dalkan aan deganahay Ingiriiska. tolka maxaa ay ku habboon. aragti waxaan qabaa inaa ugaaskaasi xaqiijiyo ugaasnimadiisa iyo dadnimadiisa iyo hoggaannimadiisa, inaan inkastoo Ingiriiska dhowr goor nagu soo maray, inaan mar kale aan soo marino, aan dalbano, aan casuuno, aan keensano. laakiin doorkan uu ka duwanaado sidii hore. xaflad maaha, damaashaad maaha. waxaan u keenaynaa inaan beecad la galno, dhaar la galno, inaan ugaaska adeecno, hoggaankiisa adeecno, qaadhaankiisana si joogtaa ilaa yawmadiin aan u bixino. ayaan aragti ka dhiibanayaa dalka Ingiriiska. inta qabta aragtidaasi, inta kalena lakum diinukum waliya diin iyay noqon doontaa insha allah billah kariim. ta ugu dambeysa, gobolka Harowe halkee ay ku jirtaa, halkee ku habboon. anuu aragti waxaan qabaa 13 sano aragtidii uu Muuse Cali Madar wareysiga ka dhiibtay oo yidhi Soomaalidu gefka ay naga gasho
haddayna ka waantoon annaku xaq waxaan u leenahay oo dastuurkana siiyey saasuu leeyahay uuna ku saxsanaa inaan ka raadino meelaha aan ka helayno xuquuqdayda sida dowlad deegaanka Oromiya amba ismaamulka Dirdhaba 13 sano aragtidii ugub ahayd ee dadka oo maanta boqolkiiba the majority dadka u badan imika ee qoomiyadu ay qabaan iyaan raacsanahay waxa weeyaan inaan ugaaskeena aan dirno heshiis aan la raadino annakiyo xajisanayna Soomaalinimadeena madulugnimadeena awoogeedii Soomaaliya ku abtirsano aan weligay allahayn awoogaasi aan meelna uga bixin marna caraba aanan ka doonan isirkayada meel kalena aan ka dooran inaan awownimada iyagoo noo tixgelinaya dad kale oo badh kamida sida Oromiya aan isku dhaqanahay laakiin aan kala luqadnahay kala umadna aan nahay inaan la qaybsano xuquuqdayadii gobolkana aan la qaybsano maxaan markaa kula qaybsanaynaa dakhliga cashuuraha oo wada qaybsanaynaa xuduudaha federaalka xukuma laakiin gobolka waxaa laga xukumay Adama amba Dirdhaba iyaguna waxay tixgelin doonaan wax dadkaan nahay Soomaalinimadeena luqadayada intaaba haddaan heshiis kale ka helino ugaaskeenuna intaasi uu soo saxiixi karo taasaan aanu aqoonsanahay inaan gobolkeena ku helno uma maleeyo inay Soomaali waantoobayso hoggaan hadday hayaanana weligood lahood waa habdhaqan min kasoo bilow ilaa iyo Siyaad Barre ilaa iyo imika kuwa joogo habdhaqan weeyaan weligood ma waantoobayaan inaan sidaas Soomaaliya isku duceyno inta haystaanana ilaahay u barakeeyo insha Allah billah kariim deegaamadoodaasi insha Allah uu barwaaqo uga dhigo annakuna deegaankan deganahay dhulkan deganahay ilaahay nagu abuuray intii madax banaan ee meel u raadin karta inaan la raadsano insha Allah billah kariim ya qaba sidaas kaga baxaya waa aniga Fatxi Cabdi Maxamed magaalada Birmingham wabillahi tawfiiq